الله u naxariistay Sheekh Cusmaan Sheekh Cumar Sheekh Daawud Culusow waxa uu ku dhashay degmada Ceeldheer oo ka tirsan gobolka Galguduud. Sheekha waxa uu ka soo jeedaa qoys aad loogu xushmeeyay diinta una go'ay barashada diinta iyo in ay bulshada gaarsiiyaan. Sanadii 1942 ayuu Sheekh Cismaan Xidig waxa uu ku dhashay degmada Ceeldheer. Yaraantiisii ayuu Qur'aanka Kariimka ah waxa uu ku bartay gurigii uu ku dhashay iyo degmadii uu deganaa oo ahayd Ceeldheer. sida la xusay barashada Qur'aanka Kariimka ah 114 Qur'aanka cadadiisa ah ayuu bartay markii ay da'diisu ahayd 10 sano jir oo ku beegneyd 1952. Rabbi ha u naxariistay Sheekh Cismaan Xidig ayaa 10 sano jirkiisii oo ku aadaneyd 1953 waxa uu bilaabay in uu gudo galo barashada diinta Islaamka qaybaha ka dhiman cilmigiisa maadaama uu bartay 114 Qur'aanka cadadiisa ah. waxa uuna ku biiray dhalinyaro xer ah oo markaasi wax ka baranaysay masjidka ugu weyn degmada Ceeldheer kaas oo uu sheekh ka ahaa adeerkii Rabbi ha u naxariistay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Daawud Culusow. halkaasi ayuu Sheekh Cismaan Xidig waxa uu ka bilaabay in uu gudo galo cilmiga barashada diinta qaybahooda kala duwan. sanadii 1960 ayuu Sheekh Cismaan Xidig waxa uu u soo wareegay magaalada Muqdisho si uu horay ugu sii raacdo qaybaha ka dhiman cilmigiisa oo barashada diinta Islaamka kaliya uu ku koobnaa. Sheekh Cismaan Xidig ayaa sida la xusay waxa uu xiriir la sameeyay isla markaasna uu ka tacliin qaatay culimo waaweyn kuwaasi oo Muqdisho laga yaqaanay Sheekh Xuseen Cadde, Sheekh Cabdiraxmaan Dhuub, Sheekh Abba iyo culimo kale oo aad u fara badan dhammaantoodna ahaa culimo diinta Islaamka barashadeeda meel sare ka gaaray. muddo kadib ayuu Sheekh Cismaan Xidig Rabbi ha u naxariistay oo ku guda jiray safarkiisii dheeraa ee barashada diinta Islaamka waxa uu u wareegay gobolada Koonfureed ee Soomaaliya waxaana uu tagay degmada Baardheere oo ka tirsan gobolka Gedo. halkaasi oo uu ka bilaabay barashada cilmiga loo yaqaan fiqiga. Sheekh Cismaan Xidig ayaa waxa uu ku guda jiray noloshiisii oo dhan inta ugu badneed in uu barto diinta Islaamka iyo sidii uu u fidin lahaa. Allah u naxariistay Sheekh Cismaan Sheekh Cumar Sheekh Daawud Culusow ayaa bilaabay fidinta diinta Islaamka kadib markii uu bartay barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo axaadiista iyo qaybaha kale ee diinta Islaamka culuntooda la xiriira. waxaana u suurto gashay intii uu noolaa in uu degmada Ceeldheer oo ka tirsan gobolka Galguduud uu ka furo xarun diimeed aad u weyn taas oo gobolada dalka Soomaaliya oo dhanba looga yimaado barashada diinta Islaamka iyo qaybaheeda kala duwan oo dhinaca cilmiga ah. Sheekh Cismaan Xidig Allah u naxariistay ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaana ay bulshada Soomaaliyeed ay ku xusuusan doonaan fidinta diinta Islaamka iyo sidii uu markastaba ugu taagnaa in cilmiga barashada diinta Islaamka la hormariyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Cabdullaahi Kulmiye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.